السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada Lancome 252 channel naca waxaan idin soo gudbinayaa casharkii sagaalaad oo kamid ah casharadii imtixaanaha ahaa ee HTML-ka ama basic web development-ga casharkeena sagaalaad wuxuu ku saabsanaan doonaa caawa waxa loo yaqaano forms-ka haddaynu guda galno casharkeena form is used to collect users input formka waxaa loo isticmaalaa sidiisaba inuu soo xareeyo ama soo ururiyo userka xogtiisa tusaale ahaan oo kale hadda marka Gmail samaysanaysid waxa isticmaalaysid oo dhan waa wada form haddii aad magaca first name kaaga last name kaaga email kaaga cusub passwords kaaga kala duwan radio button-ka haddii aad isticmaalaysid waxa loo yaqaan female iyo male marka dooranaysid country-ga wadanka aad ku nooshahay waxaas oo dhan waxa la isku dhahaa form waxaas oo dhan kama dhex baxaysid form baad la sameynaysaa oo ku wada dhex jirta wax ku wada sameynaysaa marka formkaas aan rabnaa maanta inaan sameyno formku kala duwan yahay elementiyo kala duwan ayuu leeyahay there are many element types for formku wuxuu leeyahay element types kala duwan waxaa kamid ah inputka waxaa loo isticmaala waan arki doonaa selectionka kamid ah optionka kamid ah waxaa kamid waxa loo yaqaano buttonka waxaa kamid ah waxyaabo kala fara badan baa kamid ah haddaba maanta waxaynu baranaa today we will learn some input element maanta kaliya waxaynu baranaa waxa loo yaqaano input element-ga wax ka baranaa isagoo dhan ma wada baranno laakiin xoogaa ilaa 5 xabeen ka baranaa isagoo dhan aad buu badan yahay marka waxaan filayaa inaan ka wada gaadhay waayahay haddaynu casharkeena guda galno waxaa soo furanaysaa editor-kaaga anigu had iyo jeer bracket-kan isticmaalaa adigu hadba kaad rabto baad isticmaalaysaa file baad tagaysaa new file baad leedahay ama control n baad dhahaysaa intan markuu soo baxo waxaad tagi kartaa file waxaad dhahaysaa save sidoo kale waxaad dhihi kartaa control s hadba kaad rabtid file markaan tiro destination-kaas sheegaysaa halkaad ku save garaynaysid halkaas waa muhiim desktop-ka ayaan tegayaa anigu halka ay Lancome ku qorantay folder-kaas ayaan tegayaa folder-ka markaan tago kobtan aan ku save garaynaya folder-ka dhexdiisa magac baan ula baxayaa waxaan ula baxayaa matlanba test form dabeetana extension waxaan ka dhigayaa html okay inta markaad samaysid marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa html-kii iyo bodygii html tags-kii iyo body tag-gii inta waxaan filayaa dee hadda isu sharxi mayno inagoo phone marana qof walba iska fahansan yahay headka waxaa gala title-kii waxaa ahaas baa gala marka hadda waxba gelin mayno waxba title sameyn mayno okay marka maxaan hadda rabaa inaan sameeyo form baan rabaa inaan sameeyo marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa phone element baad ka bilaabaysaa action-ka marka database-ka lagu xidhiyo markaas aad u baahan tahay laakiin hadda uma baahin phone markaad rabtid inaad qeexid form element baad ku qeexaysaa haddaba elementiyada uu ka kooban yahay way kala duwanaayeen si waan soo sheegnay sida selectionka inputka waxyaabahaas bay ahaayeen buttonska maanta waxaan baranaa waa inputka kaliya inputka qaybo kala duwan lahaa waxaanu ka baranaa haddaan ku noqdo 5 aan ka baranaa ka koobaad input text input password input text su'aal haddaan soo qaato Facebook-gaaga markaad gelisid qaanad waxaad gelisaa email qaybta waxa loo yaqaanaa input text waayo waxa la geliyaa textiga oo textiga markaad gelisid caadi buu kugu muuqanaya waxaa jira input password waxa weeye Facebook-gaaga qaybta aad password-ka gelisid qaanadayna aad password-ka gelisid waxa loo yaqaanaa input password waayo hadda markaad gelisid qoraalkii kuma muuqanayo xidiga uma ku muuqanayo button password waa ka login ka tiraahdo ama sign up ka tiraahdo waa button-iska radio button-ka waa ka aad ka dooranaysid matalan bataad ka dooratid oo kale Gmail-ka iyo mail-ka waxa tahay checkbox-ka oo kale waxa loo isticmaalaa inaad laba option yeelan kartid laba option inaad dooran kartid oo kale waa radio button-ka oo laba option leh xaggan inuu ku arkana wax walba haddaynu ka bilowno input text-ga marka ugu horeysa waxaad qoraysaa input waxaba input baa la isku dhahaa input baad ka bilaabaysaa type-ka waxaad dhahaysaa text iga dhig type-ka markaad text ka dhigtid waxaa siinaysaa wax loo yaqaano placeholder waa attribute kuwani placeholder waa wixii ka dhex muuqan lahaa text box-ka ee ku tilmaami lahaa waxaad ku qoraysid matalan waxaan dhahayaa email matalan ba enter email bandi kaas waa input text-gii input waxaa jira la yiraahdo input password-ka balan qor isagana isku marba waxaan ka tijaabinaa type-kiisa waxaad ka dhigaysaa text ka dhigay type-kiisa waxaad dhahaysaa password iga dhig
place holderkiisana waxaad iga dhigtaa enter password. sidoo kale waxaan ku daranaa waxa loo yaqaana radio button. haddaasaa input, halkaa waxaad gelinaysaa radio. okay, radio buttonka wuxuu u baahan yahay label inaan ka horeysiino. xaggan aad tegaysaa waxaad dahaysaa labelka waxaad dahaysaa matalanba mail. mar labaad waxaad qoraysaa label kale, kana waxaad leedahay female. dabeetana waxaad leedahay input, waxaad qoraysaa inputkii femaleka ahaa. halka waxaad dahaysaa radio. control s baad leedahay, waa save garaynaysaa, ama file baad dahaysaa oo save baad dahaysaa. markastoo aad qortid texti aad wax qortid aan wax ka bedeshid waa inaad save garaysaa. kabacdi waxaad tegaysaa folderkii aad ku save garaysay. waxaan ku qoray baan filayaa form test. waa kan test form, waa kan. click dheh oo browserka sidaad ugu soo kicisid. browserka markuu kugu soo kaco sidan oo kale ayuu noqonayaa. daan soo dhaweeyay. marka haddeer wixiiba way isdaba yaalaan. halkan emailkaad gelin kartaa, halkana passwordkaad gelin kartaa, halkan mail oo ah genderkaaga wuxuu yahay, kana female oo genderkaaga wuxuu yahay baad gelin kartaa. okay, laakiin aan ku noqdo xaggan oo aan ku sameeyo xaggan aan ku noqdo, aan u dhaxaysiiyo breakline si ay si fiican noogu muuqdaan. control s dheh, browserka kusoo noqo, refresh dheh. marka halkan oo kale weliba labada text box way isku dhigsan yihiin. si aan usii kala fogeyno waxaan gelinaynaa laba br laba ka dhiganaa, laba xabo si ay qurux badnaato. control s dheh, browserka ku noqo, dabeetana refresh dheh. waa aragtaa wuu kala fogfogeeyay. marka xaggan waxaad gelinaysaa emailka, waa text, kan waxaad gelinaysaa password. haddaan wax geliyo kan text caadi uu qorayaa, laakiin haddaan kan wax geliyo password qaab buu qorayaa. halkan oo kale waa mail baad dooran kartaa, female baad dooran kartaa. hadda labadooduba waad aragtaa way wada doorsamayaan. looguma talagelin labadooduba inaad wada doorato, waayo dee hal mar nin iyo naag ma wada noqon kartid. marka browserkayga waxaan ku noqonayaa editorkayga. halkan waxaan ku darayaa attribute loo yaqaano name. dabeetana kan waxaan dhahayaa waxaad tirahdaa mail. kan aan tegayaa waxaan ku darayaa attribute loo yaqaano name. waxaan ku darayaa female baan ka dhigayaa kana. control s baan leeyahay, browserkan ku noqonayaa, refresh baan dhahayaa. waa inaad haddeer hal mar doortaa ya femaleka marka ku dhuftana mailku ka soo kacaya. okay, intaa markaan sameynay waxaa inoo harsan haddaynu ku noqono input text waan sameynay, input password waan sameynay, radio buttonka waan sameynay. waxaa inoo hadha buttonka iyo checkboxka. aan editorkeena ku noqono, halkan hoose ayaan tegayaa. kabacdi waxaan leeyahay input baan leeyahay. haddana tabeka waxaan ka dhigayaa button. valuegana waxaan ka dhigayaa waxa loo yaqaano send. okay, input baan leeyahay. halka waxaan leeyahay check box. xaggan waxaan gelinayaa nameka matalan waxaan dhahayaa gaari. dabeetana waxaan leeyahay value equal value. markaan dhaho xaggan waxaan gelinayaa waxa loo yaqaano magaca. waxaan dhahayaa gaari cad oo kale. dibaddan uga baxayaa, intan aan copy-yeynaya. mar labaad halkan gaari baan leeyahay. halkan waxaan dhahayaa gaari madow batalaba. waxaan dhahayaa halkan baaskiil. halkan aan dhaho baaskiil. sidoo kale kuwana waxay u baahan yihiin labels inaan kusoo daro. xagga waxaan dhahayaa labelkan waxaan dhahayaa gaari matalanba
waxaan leeyahay gaari madow. Okay, intan koobiyeynaya. waxaan leeyahay passkey. okay, intaa markaad samaysid control s baad leedahay, deetana browserkaaga tegaysaa, kadib waxaad dhahaysaa refresh. hadda muxuu igu soo daray? wuxuu igu soo daray labadan checkbox. gaari madow waad dooran kartaa mise baaskiil baad leedahay. ka doontid labada waad dooran kartaa. labada waan wada leeyahay waad dhihi kartaa. labada waad yeelan kartaa. hal midna waad dooran kartaa. aan kusoo daro break line. okay, markaad matalan ba emailkaaga baad soo gelisay. waxaan geliyay cabdi oo kale geliyay. passwordkana waxaan geliyay cabdi oo kale. waxaan doortay mail baan ahay matalan ba. kanoo kale waxaan gaari madow baan leeyahay. gaari cadna waan leeyahay. labada waan doortay. dabeetana send baan niri. input users input so masan waxaa qeexitaankiisa formka wuxuu ahaa inuu soo ururiyo collect the users input ama users data. xogta inputka xogta userka inuu soo ururiyo loogu talagalay. hadda xogteedii soo igama qaadin formkii. ha uu iga qaada inta kaliya weeye formku. waxa loo sameeyayna waa inuu userka ka qaado xogta oo uu gudbiyo database. hadda database kuma xidhnin, laakiin haddaan ku xidhnaan lahay send markaan dhaho intaydaas oo dhan wuxuu ku xareyn lahaa database. markaan u baahdo aan ka heli karo. casharkeena caawi intaas ku egyahay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. fadlan channelka subscribe saara, videogana like saara. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.